Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalahayga qaaliga dhammaan daafaha dunida ku nool, meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. Hadaa nagu cusub tahay soo dhawow, hadaa nala joogi jirtay maasha Allah tabaarakallah, walaal jira soo dhawaada, soo fadhiista insha Allah. Maanta waxaa idin haynaa nala daawada, nala socda. Sidaan idin sheegay maanta waxaa inoo hayaa face bag or face mask or hablaha Soomaalida always qasil iyo waxaasay marsadaan wajigooda, waxyaabo toobaya wajiga jiidaya marsadaan. Marka waxaan idin hayaa alaab yar oo wajigaaga aan toobaynin, aan jiidaynin, oo dhagax ka dhigaynin, oo maaragtay oo age-ka aan kugu soo dadajinaynin, oo maasha Allah ah baan kuu hayaa. So always qasil baan iska qooshnaa, qasil oo waxba lagu darin intaan qooshnaa wajiga marinaa. Marka wixii lagaga reysan lahaa qasilkaas ayaa maanta inoo hayaa maasha Allah. Waxaa inoo hayaa alaabaha halkan aan ku hayo dhan insha Allah. Fiidiyowga adoo aan dhammaysan ha ka bixin si aad u wada aragto alaabta aan meesha ku hayo dhan iyo waxaan isku dardarayno iyo markaan isku qaso sida maaragtay ay soo baxayso insha Allah biidnillah. Haddii aad tahay gabar uu qasilku daashaday ama qasilku dhib ku hayo ama madmadow wajiga ku leh, haaro wajiga ku leh, waxyaabo dead spot wajiga ku leh, maasha Allah aniga sidaadoo kale ahaan jiray, wayna i anfacday, wayna ila shaqaysay, maasha Allah tabaarakallah. Everyday waan marsadaa, haddaan ka gaari waayana weekii waxaan marsadaa 3 times 4 times. Waxaan ku leeyahay maasha Allah way anfacday. Sayrabta aan hadda kuu hayo iskuma badinaysid, wax yar oo meel dheeraad ku qaadaysaa. Waan ku tusayaa intaad ku qaadayso, intaasoo kale aad ku qaadaysaa. Waad ku shubaysaa meesha waxa noogu jira waa shumburo weeye ama geedka xumus laga sameeyo insha Allah. Hoosaa kusoo qorayaa magaceeda, aad ku raadsan kartaan. Waxa kalood ku daraysaa rose water kaas ku daraysaa. Rose water everywhere uu yaalaa, magaalada meel kastuu yaalaa, waad ka heli kartaa. Iyadana waad ku daraysaa. Marka fiidiyowga inuu igu dheeraado ma rabo insha Allah. Haddii ay intaan sharaxaya ay go'do insha Allah waxba gadaal bay ku jiraan oo kala soconaysaan waxay ku jiraan, waa sharaxaada maasha Allah. Rose water half spoon baan ku daray oo malqacada ugu yar baan ku daray. Waxaa kaloo yaraan ku darayaa ila socda aloe vera-daasaan ku darayaa, aloe vera gel. Iyadana aad buu u fiican tahay, dead spot-ka looma gaaro. Iyadana waan ku darayaa couple drops like ilaa 3 dhibcood 4 dhibcood 4 dhibcood ilaa 5 dhibcood aan ku darayaa. Waxaa kaloo i haray saliido kale oo xagga yaala i haray iyagana insha Allah waan ku dari doonaa. Ila socda dhammaysta fiidiyowga ama clip-ka sida u taqaanaan. Maxaa ii haray? Waxaa kaloo ii haray inaan ku daro waxyaabahan aan ku darayo dhan faa'iiday leeyihiin. Skin-ka ha noqoto, face-ka ha noqoto, timaha ha noqoto, wax walba ha noqoto. Saliidaas haddaan ku tusaayo waxyaabo badan bay u fiican tahay, wajiga u fiican tahay, jidhka u fiican tahay, timaha u fiican tahay maasha Allah. Waxyaabahaas oo dhan meelaha laga helo hoos baan kusoo qorayaa. Tagas ii soo dar insha Allah, message ii soo qor, comment-ka ii dhaaf si aan maaragtay kugu soo jawaabo meelaha laga helo. Haddaad meelahan area-dan aad joogto waad helaysaa. Haddaad back home iyo dhulkeeni joogtana burcad baad ku darsan kartaa. Waxaad ku darsan kartaa oo kale oil liver. Waxaad ku darsan kartaa oo kale saliid naarajiin ama saliida oo madaxa la marsado, saliid qumbo. Wixii kuu dhow baad ku darsan kartaa inuu wajigu ku qalafin oo wajiga ku toobmin oo wajigaaga uu soft noqdo biidni Raxmaan. Maxaa kaloo noo dhiman aan ku daraynaa kaas cream bahalka yar oo ku jiro aagada asagana waan ku darayaa.
asagana waa vitamin E waa ku darayaa. Maqas baa ku jari kartaa, cididaa ku jari kartaa, easy waaye maasha Allah. maxaa kaloo ii dhiman, saliida ii dhiman iyadana waan ku darayaa. Waxyaabahaas oo dhan aan isku dardarayo waxay kaa caawinayaan inaad maaragta isku mix garayso, mix xoog iskugu qasto. Markaad isku qasto maaragta wejigaaga si yaroo relax saa u saarto waxaad ku hayn kartaa 30 minute, 1 hour, 50 minute sida aad time hayso baad ugu hayn kartaa, because waxaan chemical maaha, waa natural wixii gurigaaga ku yaalay aa isku dardartay baad ka sameyn kartaa. Marka maasha Allah tabaaraka raxmaan, hablahayga qaaliga ah, isla ogaada mar walba wejigiina maaragta nafaqo qasilka ka daaya oo tanaa nafaqo fiican ah, waana kumana toobaysa iyadu, jirkaaga ma toobayso. Marka haddaad waxyaabaha aad ku dardarin oo aad saliidaha iyo waxa aad weydo oo iyada keligeed isticmaalayso, caano boodho ku qas, caanaha caadiga ku qas, whatever aad ku qasto, ha isku raajinin meelaha 15 minute, 30 minute ugu badnaan haddaanad waxaa ku dardarayn oo wejigaaga haddii kale way ku toobaysaa. Wax ku toobayaba maaragta horaa la iskaga dhaqaa. maasha Allah tabaaraka Allah. Hadda waxaan ku darayaa saliidaas, couple drops kuma badinayo insha Allah. Haddaan isla qasi doonaa, caanahan ku darayaa. Hadday kaa yaraadaan ay caana ku darsan kartaa, caano boodho ha noqdo, caanahan caadiga ha noqdo, caano xoolaad ha noqdo, caanaha riyaha, caanaha saca, caano walbaad ku darsan kartaa. haddaad back home joogto caano walbaad ku darsan kartaa. maasha Allah tabaaraka raxmaan. Hadda marka in yar ka bacdi aan si fiican iskugu qaso waan isku marmarsan doonaa. Marka insha Allah wejiga ma idin soo gelin karo, laakiin insha Allah anaa waa guarantee, anaa idin sheegay, anaa idinka makhraati ah in alaabtaasi wac kaa dhigayso, aad jalbiiba julbuuba maasha Allah tabaaraka Allah noqonaysa. insha Allah subscribe-ka ku qabta, walaashin weeye oo idinla subscribe ku qabta, like ku qabta, share ku qabta, asxaabtiina kale la sii wadaaga. aniga saasaa idinla soo share gareeyay waxyaabo badan ee aniga ii tartay naftayda ayaan idinkana idinla rabaa. idinkuna walaalihiin la sii share gareeya, subscribe-ka ku qabta si ay hablaha maaragta iyaguna dhibaatada wejiga ka haysata ay u